ومعه غلامها ميسرة يقدمه عليه الصلاة والسلام ويقوم بما عناه فنزل تحت شجرة لدى صومعة نسطور الراهب النصرانية. 12 Rabiicul Awwal waa maalin la weyneeyo isla markaasina waxa ay ku beegan tahay maalinta uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee laga soo bilaabo 12 Rabiicul Awwal ee bisha haatan ku guda jirno ilaa iyo maanta oo ay taariikhdu ay ku aadan tahay 15 Rabiicul Awwal magaalada Jowhar waxa ka soconaya xuska iyo weyneynta maalinta uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana xaafadda Horseed ee magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle maanta lagu soo idleeyay xuska maalinta uu dhashay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxaana ka qayb galay odayaal dhaqameed waxgarad culimaadudiin iyo qeybaha kale ee bulshada kuwaasi oo ay ka muuqatay weyneynta iyo waliba khirada dhalashada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxa halkaasi ka hadlay waxgaradka iyo odayaasha culimaadudiinka ka qayb galay kulan weynaha lagu weyneynayo Nabi Maxamed dhalashadiisii ee bisha in ku guda jirnay Rabiicul Awwal. Rabiicul Awwal bishan waa bishu nabiga dhashay sallallahu alayhi wasallam dhalashadiisa awgeedna xaflad ayaa loo soo agaasimay intii soo agaasimtay intii soo qaban qaabisay intii gogasha dhigtay intii qarash ku bixisay khayr Allah ka siiyo shafaacada nabiga Allah siiyo anaga dhamaantina Allah na siiyo waxa la isku hayana waxa weeye kaliya taariikhda nabiga sallallahu alayhi wasallam in dadka la baro dadka muslimiinta siirada nabiga taariikh nololeedka nabiga sallallahu alayhi wasallam in looga sheekeeyo la baro maxabada nabiga dadka quluubtooda in lagu beero ma aha nabiga sallallahu alayhi wasallam xuskiisa mid sanadka sanad ah oo maalinta oo kaliya la xusaya ma aha nabiga waqti walba la xusaa sallallahu alayhi wasallam waxa lagu xusayaa maalintii muadin kasto aadaamayo wuxuu ku aadanaya ashhadu anna muhammadar rasuulullah nabi maxamed xuskiisa waaye nin kasto salaadan tukana dhahayana tahiyaadka markuu akhriyo salliga nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu ku xusayaa xuska nabiga sallallahu alayhi wasallam maaha mid ku kooban maanta iyo maalmahan ama bishan maaha waa mar walba mid qalbigan aan ka go'in laakiin munaasabad darteeda bishu dhashay iyo maalintii ku beegneed dhashadiisa ayaa sidaas loo soo agaasimay inta meesha isu timidna ilaahay uu kan ha u dambi dhaafo nabigaan ku xasuusanay ilaahayna abuuray yani mataqaana ummadda ka faral yeelay nabiyaalkoo dhanba nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa un laga doortay anigana waa un raacnay وإلهي مهديس ما أنت أنا أسوق نمت حسك النبي عليه الصلاة والسلام إلهي أنت بعصي أنت يعني أنت سوء أبا والشيء إلهي خير هالصيو أنا قلنا إلهي أجرها نقصيو وحمد إلهي استيسئه ما أنت أسوق نمت حسك النبي عليه الصلاة والسلام ومركز وينين تيسئيوناي شرف تيسئ أسوق نمت أنت حفلة داس إكتي أمام الله كانتي وكماتسين عبد الفتاح أحمد معلو عبد الفتاح زكي تلفزيون كعالمي جاي بولشو مقالة الجوهر.